oday baasha cabdi daxood oo kamid ahaa mujaahidiintii SNM ayaa waxa uu soo bandhigay cabashooyin kala duwan oo qabo waxaana uu cadeyn caruurtii uu dhalay iyo waliba hooyadooda ay ku xidhan yihiin qaar kamid ah saldhigyada Hargeysa oday baasha cabdi daxood iyo qaar kale oo kamid ah dadka u dhaweey la jaarka ayaa ka waramay sababta keentay caruurtiisa iyo waliba gabadhiisa ay ciidamada ammaanku xidhaan iyo waxa lagu haysto waxaana hadaladiisii kamid ahaa ninkii baasha cabdi daxood loo oran jiray Sheekh Moolde kaaga dhaawacmay adigu dagaal gelisay baan ahay ninkii kaaraha buurta yar saaraago afka u saaray afsaareeyay qorigii jiibka ay watay ee Bagastaaniga baasha cabdi daxood baan adigu dagaal gelisay madaxweyne waxaan ku sheegay cadaaladii meeday cadaaladii wadii kitaabka jabada dhaxsan jiray ma markaad madaxweyne noqotaad kitaabkiisa iska dhigtay in lacag haysato iyo imaad adigu darajo siisay ayuun baa wadanka ka nool shacabkii wuu baabaayay dadka aniga reerkayga oo dhammo uu xidhan ninka Cabdi Xasan Leeyahay Cabdilaahi Fadal ku bedeshay iyo ninka in lacag bilaaway ka ergooga keena ayaa lacag iyo xoog ii sheegtay kaadidii jaarka iga qaadiyo dumarada hareeraha iga tubaan marka dadkaygina uu xulinayo todobadeedii caruur ay istaantiiba way iga xidhan yihiin cadaaladii meeday kitaabkiima waxaad kaga timi xariye jabadiyo balgubadle ka hooseeya iyo waxa isteeshnada haysta waxaan u sheegaynaa baasha cabdi daxood oo dalka u dhintay oo madax lahayn oo kaliya lahayn oo iyo gacmo midna lahayn oo jajabada codoodan waxaan u sheegaynaa dalka u dhintay inuu been in la isaga sheegay oo xaq la yiri waa la ismarinin in uu saakayso meydkaas oo saxarada laga qaadayo inuu dadkiisa wada xidhan yahay hadduu xidhan yahay wuxuu xidhan yahay inanta oo u dhaxday baasha cabdi daxood inanku walaalkeed dhalay ayuu u xidhan yahay waxaan u sheegaynaa anagoo jaarkii xaq ahaaya baasha cabdi daxood waxaan u sheegaynaa dadkiisa inuu dulmi ku xidhan yahay oo cadaalad darro dadkiisa lagu qaado lagu xidhay ayaanu dawladda u sheegaynaa oo madaxweynaha u sheegaynaa Muuse Biixi Cabdi oo noo sheegaynaa oo shaad iyo lacag loo adeegsaday dadkiisii annagu wax kale sheegi maynaa ninkaas dulmigu qabo ee reerkiisa ku wada xidhan yahay dadkiisa qof ka joogna jaarku miinka yahay taasaan annaga nagubaysan u sheegaynaa marka cadaalad ha helo oo kuwii dhaawac qabay ee loo diiday dhaawac muujinta ha loo gooyo reefeeto waxaan u sheegaynaa inuu cadaalad darro ku xidhan yihiin dadkaas oo dulman yihiin dadkaas oo dhibaataysan yihiin dadkaas oo waxa lagu haystay waxay ku xidhan yihiin aan la garanayn dadka islaamka hoos loo eego inaanu jaarkiina oo ninka miskiinka mujaahidka ah annagoo cawradiisa arkayn la yiraahdo jaarka kaadida ka qaado wax ma aha islaamnimadu ku dhaqanto marka dawladda iyo waxaan ka baryaynaa iyo isteeshinada iyo dadkaas wixii muddo nabiga ku abtirsanay islaama ee inuu dhiilehe inaan laga soo furto haddii alla koonay waxaan murxinka iyaga ahayn in loo diro aanu jaarnahay oo jaarnimadu noo keenayso iyo xaq islaamku isku leeyahay dawladda iyo Muuse Biixi iyo wixii ka hooseeyay wixii isteeshinada waxaan ka codsanaynaa in ninka ay reerkiisa bila cadaalad ku xidhan in hoos loo eego magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha